effectiyo ayaynu ku furaynaa aad baynu u qurxinaynaa halkan ayaad ka fariisanaysaa effectiyadiisa qaabkaas ayaad u qurxinaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض داوديال كسو دوادا كانالك إسلاميك تكنولوجي إن شاء الله تعالى ما توحنا سي ودي دونا إن أبليكيشن كين لو يقانا يرى محترف الخط إن أبليكيشن كان ينصفرينا إن سيد أركس أبليكيشن كوا ينصفر ميا وعشر كي أفراد إن قف كان 10 هوري لسعون إن وإن شاء الله تعالى 10 هوري صو داون دونا كانالك أيو دي بيقول نقون دونا سو إنه ولا قبسن كرو إنه ولا جان قادي كرو سيدو كلا 10 كان وعشر كي وجودن بي sidaynu ogeyn marka waa kan noo soo furmay waxaynu soo sameynay designadan kan maalintii ugu dambeysay sameynay kanna waxaanu sameynay maalintii ka horeysay sidoo kale kuwa hore ay igu sii jiray sida kan oo kale kuwan kan hore ayaan iskaga sii samaystay laakiin kan waxa aan sameeyay idinkoo arkaya si soo taabsi ayaynu u sameynay farta saaw quruxda badan leh marka haddii ilaahay dhahdo bal waxaynu eegi doonaa kan baynu furi doonaa haddii ilaahay dhahdo ka aynu sameeyna aynu furi doonaa isla marka aynu ka furno waxaan oo dhan wada sharaxay halkan waan sharaxay qaybahan oo dhan mid walba functionka uu qabto waan sharaxay haddii laga tagi waayo waxa aan ka tagay halka ay ku qoran tahay calaamada exportiga halkaas marka halkaas dad ku dhufato imika halka ka horan hadaynu ku dhufano halkaas waxay noo soo baxaya optionadan kow inaan Facebook ku share gareyno laba inaan muxuu ahaa gallery-ga ku save gareyno saddex inaan PDF ka dhigno afar oo aynan meelo kale ku share gareyno sida WhatsApp meelo kale any application ama any social media kugu jira in lagu share gareeyo marka PDF na ma rabno wax kalena imika ma rabno laakiin waxaan ku isku daynaa inaan ku save gareyno kiyo haddii la yiraahdo gallery-ga inaan ku save gareyno si aan gallery-ga ugu save gareyno waa in halka calaamada downloading-ka inaan taabanaa waad arkaysaa inuu save gareynayo waxa uu leeyahay image-kaagii waa la save gareeyay ayuuna leeyahay marka close baan isku oranaynaa imika gallery-ga ayuu inoo galay sidoo kale waxa la save gareyn karaa imika background buu leeyahay background-ka waa laga bedeli karaa kiyo bilaa background-na waa la save gareyn karaa haddii la yiraahdo marka sideen background ka dhigi karnaa waxa weeyaan halkan ayaynu soo furaynaa halka markaynu soo furno waxaan tegaynaa halka ay ku qoran tahay color ama color background ayaynu ku dhufanaynaa waxaan waa wada coloraan aynu dooran karno intaa kadibna halkan aynu effectiyada ka freezing karnaa sideen hore u soo daawanay laakiin kaasi color ma aha ugu dambeeya kaasi waxa uu yahay waxa weeyaan bilaa background marka ka dhigayso bilaa background tolo maxaan ka wadaa inaydaan fahmin ay iskaga badan tahay ilaa si practical ah idin tuso marka horta bilaa background ma ka dhiganaa kaas aynu dooranaynaa waad arkaysaa calaamada tigta ayaa saarantay macnaheedu waxa weeyaan kaas ayaa dooratay weeyaan inta kadib apply ayaynu ku dhufanaa sidii caadada ahayd waad arkaysaa imika farteeni si fiican uma muuqato laakiin farta waxa daciifiyo isigii background waxa isku eegaaday shaygii bilaa background ka ahaaba isku eegaaday marka farta ayaynu soo yara ceshanaynaa color kale aynu ka dhiganaa si aynu u arki karno marka halkan aynu ka select gareyn karnaa xabad sideen hore u aragnay laakiin waxa ka fiican halka edit ay ku qoran tahay inaad taabato inta kadibna select all inaad tiraahdo dhamaantood inaad doorato kadib markay ku select gareysay haddaad taabato selectiga ayaa qaar ka noqonaya marka waxa weeyaan waa inaad kaliya colorka inaad tagto baa muhiima colorkeen tagaynaa tusaale waxaanu ka dhigaynaa akhtar tusaale okay si fiican waa arkaysaa baan u malaynayaa inuu akhtar uu noqday colorkii bal waynu save gareynaa kaas waa bilaa background imika wax background oo ka dambeeya ma jirto haddii casaan la dul dhigo casaan buu background-kiisa noqonayaa haddii muxuu ahaay cadaan la dul dhigana cadaan buu noqonayaa haddii madow la dul dhigana madow buu noqonayaa marka bal aynu eegno sidii waa bilaa background maxaan ka wadaa bal aynu soo save gareyno calaamada save-ka ayaynu ku dhufanay halkan ayaynu ku dhufanay intaa kadib ay ku qoran tahay calaamada download-ku waynu save gareynaynaa waad arkaysaa uu save gareeyay okay inta kadib close baan isku oranaynaa application-ka waan iskaga baxaynaa application-ka gebigiisa waan iskaga baxaynaa inta kadib gallery-ga ayaynu soo furanaynaa gallery-ga markaynu soo furayno okay kan waa kii bilaa background-ka ahaa kan kale ku xigaana waa kii background-ka lahaa
marka imu waa bila background hadii cadaan la dul dhigana cadaan buu noqonayaa marka madowgani hamoodin color waa bila background buu inoo sheegaya okay kaas inaad fahantay ayaan jeclahay marka waliba waynu sii qurxinaa insha Allah taala waynu sii dhalaalinaa waxaanu ka dhiganaa mid aad iyo aad qurux badan application kale aynu dhex gelinaynaa colorkiisa dahabi baan ka dhiganaa waan qurxinaynaa insha Allah okay application kan pixel lab ka loo yaqaanay soo kicinaynaa si aynu aad ugu sii qurxino farta aad iyo aad baynu u qurxin doonaa insha Allah application ka halka delete ayaan taabanay waa tagaskan ayaynu iska delete gareynay ama qoraalkan ayaynu iska delete gareynay qoraalkan ayaynu iska delete gareynaynaa qoraalka markaynu saa u taabano inta kadib halka tagas delete ayaan taabanaa waan iska delete gareynaynaa application ka colorkan ayaynu iska bedeli karnaa intaynaan soo gelinba halkan ayaynu colorka ka dooranaynaa halkan ayaynu ka dooranaynaa colorka tusaale ahaan cadaankaas ayaynu iska dooranay waa tusaale un baan ku siinayaa hadii la yiraahdo inta kadib waxaan soo gelinaa farti aan ku sameynay ana muxtaraf al-khat ayaynu soo gelinaynaa halka calaamada wadarta ayaynu ku dhufanaynaa inta kadib gallery ayaynu ka dooranaynaa from gallery halka ku qoran tahay ka dooranaynaa inta kadib waxaan teginaa gallery-geena ayaan teginaa okay gallery-ga markaan tagno markaynu gallery-geena aynu tagno gallery-geena ayaynu dooranaynaa gallery-geena waxa inoogu jira sawiraan badan buu inoo soo bandhigay oo igu jira laakiin waxayna khuseeya labadan ayaynu soo gelinaynaa insha Allah taala kan ayaynu soo gelinaynaa background kale marka ugu horeysa aan tusaale ugu aragno kii background ka lahaa baynu soo gelinay waa kii background ka lahaa background ka kii lahaa waynu soo gelinay waad arkaysaa isaga background kiisu waa maxay background kiisu waxa weeyaan midabka asqarka midabka buluuga inta kadib dana waxaynu soo gelinaynaa kii bila background ka ahaa baynu soo gelinaynaa kii bila background ka ahaana waynaga soo gelinay imika waad arkaysaa background kiisu waa sidee kan background kiisu background kani male kolba midabka la dul dhigo waa eegaanaya marka aan leeyahay waa bila background iyo background male waxaas ay ku kala duwan yihiin marka waanu sii qurxinaynaa insha Allah taala kan background kale waan iska delete gareynaa waayo way ujeedkeenu ka lahayn waxa weeye in la arko shayga background kale iyo shayga bila background ka ka waynu iska delete gareynaynaa kan markaynu iska delete gareyno waad arkaysaa inta kadib waynu qurxin karnaa 3D baynu ka dhigi karnaa colorkan xataa akhtarka xataa waynu bedeli karnaa ila soco insha Allah taala step by step marka ugu horeysa waxaanu soo gelinaynaa color ama texture ayaynu gelin karnaa colorkeenu waqti marka hore isku eegaynaa inaynu gelino marka ugu horeysa colorkeenu ka bedelaynaa colorkana waxaanu ka gelinaynaa halkan ay ku qoran tahay color ayaynu ka gelin karnaa waynaga adiga arkayno amarkiiba casaan noqday madow baan ka dhigi karnaa buluug waxaan doono colorkan doono halkan ayaynu ka dooran karnaa sidoo kale waxaan soo gelin karnaa colorada gallery-ga kugu jira amba sawiraanta gallery-ga kugu jira inuu eegaysiin karnaa halka texture ay ku qoran tahay inuu ku dhufan karnaa inta kadibna halkaas inuu ku soo dhufan karnaa si uu gallery-ga inoo geeyo okay waad arkaysaan gallery-geenu ayaynu ku soconaa coloranta inuu iska dooranaynaa okay colorkan tusaale ahaan colorkan baaba iska dooranaya dahabiga waliba bartaas aadka u dahabiga baynu eegaysiinaynaa inta kadib calaamadan tigta ayaynu ku dhufanaynaa koornaha calaamadaas ayaynu ku dhufanaynaa tigta okay inta kadibna halkan ayaynu ku dhufanaa ayaynu tig garaynaynaa waad arkaysaa imika colorkii dahabiga ah muu qaadan oo colorkii muu soo gelin sababtoo ah color hore ayaa ku jira ka hore ayaynu ka saaraynaa halkaas ayaynu ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay color waan iska xidhaynaa insha Allah hadda waad arkaysaa walibana si daciifa background-ka isku eegaadeen cadaan buu yar eegaadeen laakiin colorkii dahabiga ahaa ayaa ku qormay sida awgeed color background-ka iska bedelanaa background-kana marka si la iskaga bedelo waa in halka la taabtaa halka markaan taabano inta kadib halkaas color ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa halka color ay ku qoran tahay inta kadibna hadii la helo coloranta inuu iska dooran karnaa colorkan doono ayaan dooran karnaa tusaale colorkaas aan dooranay waad arkaysaa imika colorkiina dahabi ayaynu ka dhignay aad u sii qurux badan sidoo kale waxa aan ku samayn karnaa hadii la yiraahdo 3D ayaan ka dhigi karnaa calaamada centerka intaan doorano calaamada centerka intaan doorano ayaan 3D ka dhigi karnaa xagaas inuu jiidi karnaa ilaa intee noo soo baxayso meesha ay ku qoran tahay 3D shape 3D baan ka dhigaynaa 3D gaan taabanaynaa inta kadib halkan inuu active ka dhigaynaa waad arkaysaa
3D inuu yahay haddaynu 3D wadiga arkaya kolba sida uu noqonayo marka waxaanu dhabaskiisa ka dhigaynaa intaasoo kale tusaale ahaan waxaan ka dhigaynaa 8 meelahaasaan ka dhigaynaa ama 6 okay effectiinu ku furaynaa effectiyo ayaynu ku furaynaa aad baynu u qurxinaynaa halkan ayaad ka fariisanaysaa effectiyadiisa qaabkaas ayaad u qurxinaysaa aad ayaad usii qurxin kartaa waad arkaysaa sida qaabka aynu u qurxinay waad arkaysaa qaabka aynu u qurxinay application pixel lab intaa kadibna waad save garayn kartaa application kan hore baynu uga soo hadalnay kanaalkeena ayuu ku jiraa pixel labku sidoo kale tutorialkiisa dhammaystiran waan soo gelin doonaa waxaan jeclahay dhammaantiin inaad fahanteen application kan iyo application kii kalaba oo ahaa application kan uu socono ana muxtaraf alkhad kan sida adigoo arkaya ayaan bilaabay idinkoo arkayaan waan dhamaystiray sida quruxda badan imika cover book ayaad u isticmaali kartaa waxaad doontaa ayaad u isticmaali kartaa masxafka quraanka kariimka waad aragteen yani siduu u qurux badan yahay يعني waxyaabaha soo miiran iyo kutub badan oo carabiya ama xadiisa ama noocay doonaan ha ahaade waa farta ugu quruxda badan leh lagu sameyn karo lagu photoshopeyn karo adigoo telefoonkaaga isticmaalaya haddii hadda ka hor isticmaali jirtay muxuu ahaayay computer telefoonkaaga ayaa wax walba ka caawin doona waa technology casri oo la gaaray tan intaanu ku kulmi doonaa casharkan oo kala lamida waa bahda Islamic Technology. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.